wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Muumin Axmed Sheekh waxa uu jawaab ka bixiyay cabasho ka soo yeedhay murashaxa madaxa bannaan ee madaxtinimada Djibouti kula tartamayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle mudane Sakariya Ismaaciil Faarax. Wasiir Muumin Axmed Sheekh ayaa sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay habka ay u qabsoontay doorashadu, isagoo sheegay in goobaha waqtiga loo kordhin doono haddii aanay dadku codeyntooda dhammaysan. wasiir Muumin Axmed Sheekh oo arrimahaas ka hadlayay waxa uu yiri wallaahi musharxooda wali war kama hayo annagu bureau de vote ku qoran yahay wuxuu ku qoray aan malaya iskool kale halkan kuma qorno école Saint Portier Sud buu ku qoray aan malaya marka musharrax kaste qof kasta oo codeynay wuxuu tagayaa bureau ku qornaa oo ka diiwaan gashanaa buu tagayaa halka buu ka codeynayaan marka Sakariya Ismaaciil Faarax isagu musharrax madax bannaana isaguna كل بيروجي وكقرنا وكعدين دون والله وركا إمي كادي كمقلية سكرية إسماعيل فرح رقبة للشقيني كابينيجي كمدا ووحي والدباتة تابرة النكاس للصعداء النري وحاجرة كونسي كونستيتيوشنال ياسية دتك أكريديتيشن كوا بيروية فريسانية دي هدي ودباتة الشيء وإما قلكينا دباتة تابي كشيء يصير isagu inuu haduu dhibaato sheegana warqad soo qorto ambulance ila soo hadlo ambana doodoonay oo dhibaatada ba jirtay sidoo noo xallinaysa inuu yiraahdo laakiin imika journalist ka maqlaya aadaan ka maqlaya warkan uu sheegay waa kaade codeystuna oo wax isaga u taalo wax dhigay taalo ma haduu codeynayo haduu codeynin isaga u taalo xeer buu leeyahay inuu codeeyo xeer buu leeyahay inuu 500 iyo 920 bureau de vote baan nagu niraana waa xafiis Soomaa 520 wadanka oo dhan weeyaan 305 waa Djibouti inta kalena waa gobolada doorashadu saaka 7 bilaabantay waa socon doontaa ilaa yaaw 6 hadii aan aragno 6 inay dad badan wali saaka ku jiraan ay doonayaan inay codayaan saacad baa lagu daraa waa la beerin karaa laakiin waxay ku xidhan tahay dadka saanka ku jira hadii uu dad badan yahay waan beerinaa hadii uu dadku wada codeeyay uu dad jirin 6 baan xidhna natiijada marka ay heejadihii iyo meel kastaba ay soo diraan saxaaradaha ay soo eegaan ee halkan eegno dib loo eego yaa lagu dhawaaqi doonaa natiijada provisoire-ka ta kala dambeynta 10 cisho kadib conseil constitutionnel-ka يا كل واقع دون تكلم كذا بيت وقدام بيت كواس كامبين كي أمبوليس الله ودم هذا ما تولى فوتينية لو ما بهنو نن على مدى يحموجنا يلا ما بهنو نول بوح لو جبهي هدو على مدى موجنا يونو حافظها تقول كي صاحبتي وبالكوجا ولا كاليهم فوتين صايرة كاليهم عضيني إنه راوية anigu intii bureau soo maray wixii astaan muuqda sitay waan ka dareeriyay waxaan ka yiri looma baano astaan muuqda maanta waa maalintii codeynta ololuhu wuxuu dhamaaday arbacadii shalay arbacadii daraad buu dhamaaday waxaan ku oran lahaa kuwaas tartanku uu furan yahay qofna looma diidin ninkii doonaya inuu soo dhigto uu madax bannaaya madaxweynuhu hadduu soo dhigto wasiirka arrimaha gudaha waxa quseeya inuu saxaarada wixii soo dhigtay uu tiriyo ninkii soo dhiganay qofna uma diidin kuwan le madaxweynuhu kolkii shanaad buu soo noqday iyaga yaa u diiday inay soo dhigtaan 5 goorba waa doqashara xaqa oo xalaala oo nadiif ah weeyaan ninkii soo dhiganaya qofna uma diidin anagu uma diidin dastuurku uma diidin xeerka Djibouti uma diidin marka kuwan shambu soo dhigtay waa jalousie uma malay ugu dambeyn alxamdulillah kaga bixi lahaa waxaan ku faraxsanahay maanta horta shacabka reer Djibouti oo gaadhay heer kan maturité politique waxaan anagu u bislaaday dimuqraasiyadda iyagii oo intii ololuhu socotay waxba dhibaato aan la soo sheegin يا هرتا فيليسيتاسيون ayaan ma hadda gaar u diraya waxaan leenahay ilaahay saah noogu wado nabadgelyada ilaahay noo adkeeyo Luqman Maxamed Faarax Bulsho TV Djibouti